halkan oo ah dugsiga sare ee Galgaduud waxaa si rasmi ah maanta uga furmay imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad oo ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Galmudug. imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad waxaa sanadkan Galmudug guud ahaan uga fadhiisanaya 4931 arday sida uu tilmaamay wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare oo halkan si rasmi ah imtixaanka uga daafuray. 25 xarumood oo ku yaala degmooyinka Galmudug ayay imtixaanka maanta u fadhiisanayaan ardada fasalka 8aad sida uu tilmaamay wasiirka waxbarashada isagoo wasiirku u rajeeyay ardada in ay ku guuleystaan imtixaankan ay qaadayso wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waa maalintii ay ardada reer Galmudug ay u fariisanayeen imtixaanka ee fasalka 8aad. Waxa imtixaanka u fariistay 4931 arday oo kala jooga 25 xarumood oo ku kala yaala 12 degmo iyo 2 deegaan oo Galmudug kamid ah. imtixaanka waxaa ka qayb qaadanaya shaqaale gaaraya 600 oo qof oo isugu jira kaaliyayaal, kormeerayaal, waardiyayaal iyo ciidanka booliska oo iyaguna qayb weyn ka ah bal sugitaanka amniga imtixaanka. waxaan rabaa inaan bogaadiyo oo dhiirigelin u jeediyo oo u duceeyo ardadaas tirada badan ee reer Galmudug ee imtixaanka ka qayb qaadanaya. Ilaahay subhanahu wa ta'ala imtixaanka u fududeeyo. inta ka qayb qaadatana waxaan u rajaynaynaa oo runtii aan ku bogaadinaynaa dadaalkooda iyo guusha ay gaareen. waxaan rabaa inaan halkan aan uga soo jeediyo dardaaran waalidiinta ilmaha maadaama uu imtixaanka waqtigiisa oo laga baxayo ay xilli dambe tahay oo ilaa 7 saac iyo bar la gaarayo. waxaan rabaa inaan dardaaran u soo jeediyo in xilli hore ilmaha maadaama ay mararka qaar xilliga oo break ay quraacda u laaba jireen in xilli hore baalka quraacdooda la siiyo oo runtii arintaas maalmaha imtixaanku uu socdo laga taxadaro ayaan runtii u soo jeedinayaa. aad ayaad u mahadsantihiin. guul ayaan u rajaynayaa ardada reer Galmudug ee imtixaanka u fadhisa xaruntan aan maanta joogno. waxaa imtixaanka ka qayb qaadanaya arday gaaraysa 459 arday oo runtii aan dhihi karno waa markii ugu badneed oo arday intaas leeg ay xaruntan ay u fadhistaan imtixaanka. aad u mahadsantihiin. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda Galmudug ayaa markii saddexaad oo xiriir qaadaysa imtixaanka dugsiga dhexe ee fasalka 8aad waxaana kana qayb ka noqon doona imtixaanada ay qaadayso wasaaradda. Cabdi Fataax Yuusuf Beereed, warbaahinta Shabeelle.